السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داوديال iyo saaxiibada nagala socda halkan aan ku leenahay YouTube-ka waanigoo ah Dr. Yusuf maanta waxaan jecelaystay inaan kala hadlo video yar oo gaaban oo aan kuga sheekeynayo ama aan ku soo bandhigayo afar qaacido ama principle ka ahaan ama aad ku daweynayso haddii uu soo gaaro dhaawac cusub uu soo gaaro marka afartan qaacido ama afartan waxaad ku daweynaysaa ama aad ku maamulaysaa haddii uu soo gaaro dhaawac ahaan haddii uu ka soo gaaro adigoo sports ama ciyaar sameynayay ama adigoo sameynayay gym ciyaarayay oo kale oo dhaawac soo gaaray inuu lug ka soo gaaro tusaale ahaan oo kale ama inuu rug ka soo gaaro ama garab ama dhabarka oo kale meel uu ka soo gaaraba dhaawaca cusub ee ku soo gaaray waxaad u isticmaalaysaa inaad ku manage karayso afartan qaacido waxa laga yaabaa inuu dhaawacaasi noqdo inay seed wax ku noqoto ama inuu muruq wax ku noqdo laga yaabaa marka wixii uu yahayba intaanad la ogaan waxa uu yahay ama uu kugu soo bixi xanuunkan ama aan dhakhtar u gaadhin waa inaad isticmaashaa afartan qaacido si aad u maamusho aad u daweyso xanuunkaaga ama dhaawacan ku soo gaadhay had iyo jeer waxa kamid ah calaamadaha lagu garto markuu ku soo gaadho wax dhaawac ay ku soo gaadho had iyo jeer waxa lagu gartaa inuu aad dareento xanuun aad iyo aad u fara badan xanuun aad u badan aad dareento talabaad kale inaad dareento meeshii oo ku bararta oo aad barar aragto isla markiiba ay bararta ta saddexaad ay kale ayaduna waxa weeye aad dareemaysaa waxa weeye inay meeshii aad aragto inay casaato iyo number 4 oo aad dareemayso meeshii oo yara kulaatay tusaale ahaan oo kale calaamadahaasi waxa weeye waxyaabaha lagu garto markasta oo ku soo gaadho dhaawac uu ku soo gaadho meel uu ka soo gaadho waxyaabahaas waxaad ku arkaysaa calaamadaha aad ku arkayso haddaba maxaad sameynaysaa si aad u maamusho ama afarta qaacido aad ugu isticmaasho intaanad hospital ama dhakhtar la kulmin number 1 waxa aad sameynaysaa in aad samayso number 1 nasasho samee nasi haddii aad kubad ciyaaraysid haddii aad biraqaad qaadayso aad gym waday just inaad nasiso waayo waxa weeye waxa ay muhiim u tahay in aanad haddii ay seed ama muruq ama wax ku noqdo in aanad sii dhaawicin dhaawac dheeraad inaan ku sii gaadhin waxa markaa muhiim inaad joojiso wixii activity aad qabanaysi in aad joojiso waayo waxay ka caawinaysaa inaanad dhaawac kale ku soo gaadhin number 2 waxaad sameynaysaa inaad ku apply garayso ama ku bukayso waxa loo yaqaan barafka oo aad meeshii wax ka soo gaaray aad saarayso fadlan hana saarin barafkii oo toos ha u saarin maqaarkaaga laakiin waxaad sameynaysaa inaad mara ka hooseysiiso ama tuwaalo kale ama maro kale saarto kadib barafkii aad saarto barafku waxa way ice pack waxaad ka helaysaa ama isagoo farmasiyadka asagoo samaysan ka helaysaa ama waxaad ku samaysanaysaa gurigaaga aad ugu samaysan kartaa waxyaabaha aad gurigaaga ku samaysan karto waxa kamid ah in aad isku darto biyo iyo hadii jeer alcohol faraha la marsado kale la isku nadiifiyo sterilizer-ka oo kale iyo inaad ku darto saabuunta hadii jeer lagu xalo weelka waxa soo kale inaad saddexdaas shay isku darto kadib aad bahal ku samayso ku duubto aad baag ku waxayso geliso talaagada kadib aad isticmaasho sidaana waxaad u samayn kartaa si aad guriga ugu samaysato barafka ama isagoo samaysan baad helaysaa xulul iska fudud yihiin oo meel kasta aad ka helaysaa isagoo samaysan marka baraf ayaad ku talaba qodobka labaad baraf isticmaal hana isticmaalin inaad maqaarkaaga toos u apply ugu mariso mara ka xigsi qodobka saddexaad number 3 waxa weeye in aad samayso doobitaan haddii meeshii rug ama laabatadii uu ka soo gaaray dhaawac ka soo gaaray doob waayo waxa ay ka hor ku saacidaysaa in aanu barar badan ku waxaysmin meeshii hadduu barar masla markii wax ka soo gaaray barar ba imanaya bararkaas markuu yimaado maxaa sameysmaya waxa sameysmaya in laabatadii shaqadeeda hoos u dhacdo inaad ku si fiican ugu shaqeyn weydo laakiin doobitaan hadaa samayso waxaad helaysaa in uu garab bararkii ka yaraado ta ugu dambaysa ee number 4 waxa weeye in aad isticmaasho hadii jeer kasar kor u qaado
haddii uu ruug wax kaa soo gaadhay ruuga kor u qaad meel sare saar laba barkin isdul saar had iyo jeer markaa saa u jiifto wadnahaaga wuxuu la weysiiyo lugaha weysiman yihiin laakiin waa inaad ka saraysiisaa halka wadnahaaga laba barkin saar lugaha kor u qaad taasina waxay kaa saacidaysaa in uunu barar badan iyo aanu kugu haysmin aan lugti ku weynaan tusaale ahaan oo kale ama gacantii hadii wax ka soo gaaray kor u qaad waxaan kusoo gabagabanayaa inaad waxaan rajeynayaa inaad ka heshay fiidiyogan marka aad had iyo jeer barafka isticmaalayso aad ku apply garanayso meesha waxaad isticmaalaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ayaad ku meeshii ku haynaysaa si uu ku caawiyo marka waxaanad isticmaalaysaa maalintii ilaa 4 ilaa 5 jeer oo aad ku isticmaali kartaa si uu ku caawiyo barafku video intaasaan kusoo koobaya waa inoo kula dambe aad iyo aad u mahadsantiin waa inoo kula dambe bye